ardaydii ay wax wada baranayeen isugu jira. Safiya Maxamed Xooshey waa hooyada Deeqo waxay dawladda ka dalbatay in cadaaladda la hor keeno askariga dilka geystay. qabriga ay agtaaganahay ilaahay iga sabar siiyo waxa iga dishay shalay 6 saac ciidamada sheego waxa badan waxay ku fureen baabuurka ay ku jirtay madax ay ugu dhufteen marka aniga wiilkayga sasay ay imaado ilaahay ii keenay alxamdulillah marka aan guriga ka soo ordana ilaahay wuxuu ii keenay booski ay ku dhimataan imid kaasa istaarka lay waday wiilka darawalka hay ayaa ii didaalay ilaahay weynaay kasokow geerida Deeqo gaariga la xabadeeyay ay shalay waxa uu cabsi ku beeray ardayda dugsiga hoyga Xamar iyo maamulkiisa. Cabdiraxmaan Shaacir waa ku xogeenka gudoomiyaha dugsiga hoyga Xamar. waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno sagoontinta gabadhayada dhimatay oo run ahaantii gacanka xaq daran ay ku dishay xaqna aysan u lahayn in la dilo ahayna iftiin soo baxayay oo run ahaantii shalay markii saacado ka hor waxbarashadeeda caadiga ku jirtay xilligii rawaxaadda iyadoo isla waalidkaaba u tagaysaa gurigaaga tagaysaa waxbarashada gelinka dambe dugsi quraankaaga aadaysaa niyadda ku haysa ayay waxay la kulantay dhacdadan masiibada ah. waalidiinta gabadha geeriyootay ayaa dhankooda ku eedeeyay arintani General Sheegow waxaana ay tilmaameen askariga dhibka geystay inuu ilaalo u ahaa Sheegow inkasta oo uusan arintaasi jawaab ka bixinin ilaa iyo hadda. Munasar Maxamed Cabdi, Dalsan TV, Muqdisho.